حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ولليال ما أنت أيتهاي مالنا حظة أو بالشاشنات أيتهاي تطبيق لباتهم. waxaynu xiri doonaa insha allahu tacaala dugsigeennii ama macadkeennii ama markaskeennii waxbarashada ka socotay muddo hal sana insha allahu tacaala. waa sanad guuri hadduu ilahay insha allahu tacaala. ilaahay baan subxaana wa tacaala mahad celinaynaa noo kaamil yeelay oo noo dhamaystiray sanadka waxbarashadii. sanadkan waxaan rajayn doonaa insha allahu tacaala sanadada ugu fiican inuu noqon doono, hadday noqoto xagga waxbarashada qur-aanka, hadday noqoto xagga waxbarashada diinta iyo culumta carabiga iyo islaamiga, hadday noqoto waxaan noqon doonaa sanadkii noogu khayr badnaa insha allahu tacaala. san ilahay ka rajaynayno. systemku masaajidkan uu kuu leeyahay, waktina wuu yar yahay, inta badan carruurta ayaan siin doonaa. wax kelima ah waxaa yeelan doona maamulku har kelima ah iyo sheekha oo har kelima insha allahu tacaala. wixii kale oo dhan carruurteena askara insha allahu tacaala. waxaan sheegi doonaa akhiirkii waktiga borosesku soo xigo maadaama sanadkii dugsiyeedku u xidhmay wixii samarka taymka ku aadan baan sheegi doonaya wixii qorshe nasha bixi doonta insha allahu tacaala. إنه بالله waxaan kusoo dhaweynayaa arday ugu horeeyo oo quraanka lagu furi doono waa rabna Sheekh Jibriil baan kusoo dhaweynayaa falyatafadal mashkuuran majuura soo ka hadlo. waxaan rajaynayaa huduu inuu laazimo xoogaa buu hadalka ha yaraado. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. الله سبحانه وتعالى بارك اليوم حفظ الله سبحانه اليوم ما شاء الله نروي ان شاء الله تعالى برنامج ونصعد ان شاء الله تعالى وحنقول بجوانب ما الشيخ حسن يمد لكم ان شاء الله تعالى وقصه صم اخبار شرعيه يقيمها الى ان شاء الله تعالى على الشيخ سلوه في الدكتور مشهور الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى كما ديران دونه marka hore ardayga quraanka akhriyo waxaan leenahay ma sha Allah dadka muslimiintaana waxa looga baahan yahay oo sunnah marka waxay ku farxaan ay arkaan inay ma sha Allah yiraahdaan sacabku meesha kuma jiro ma sha Allah qofka waa in la yiraahdo oo la yiraahdo alxamdulillah in sha Allah ta'ala waxaan kelmad kooban ka dhihi doonaa ardada ayaan dhihi doonaa kelmad kooban waalidiintana sidaas oo kale kelmad baan dhihi doonaa haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qadaro macallimiintana kelmad baan ku dari doonaa akhiiranna markaska insha Allah ta'ala ayaan kelmad dhihi doonaa marka hore cilmiga iyo fadligiisa dadku waa ka dheregsan yahay oo dadka meesha jooga waxa weeye dad culimo iyo dad culimada dhageysta oo cilmiga ku xidhan علمنا فضلجيس أي شرف كيس إلهي سبحانه وتعالى أي آيات فربنا كجور رمي نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث فربنا أيو كجور رمي مركا إمك وحوكم مسجد داران دون هدان آياته صوت رنو هي هدان أحاديث صوت رنو أنتوا وايسكم الويان أرضنا إن شاء الله تعالى سود لا شيء مركز ك هرينا وروح النايب إمك كانت دولتي وحبر الشر قدام معتي waxaan leenahay marka ugu horeysa alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadda iska leh marka labaysa juhdiga ay bixiyeen iyo dadaalka ay soo bixiyeen aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa
waxaana aan leenahay waa inaad sii siyaadisaan oo aad sii laban laabtaan waxaan ku darayaa oo inta aan raacin doonaa alla subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi aayad uu ku yidhi gudaheeda wattaqu llaha wa yucallimukum allah ilaahay ka cabsada ilaahay waa idin bari doonaa cilmiga waa idin bari doonaa iyo wax badan oo aydan garanaynba waa idin bari doonaa ee ilaahay ka cabsada markaa qofkii doonaya ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu cilmi u furo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmi u siyaadiyo waa inuu allah ka cabsado cabsida ilaahay uu ku dadaalo weeyaan caliyun ibnu abi aalib radia allaahu canhu waxa uu hadal xigmada ku leeyahay cilmigu waa ka khayr badan yahay maalka cilmigu waa ka khayr badan yahay maalka ayuu leeyahay sababtu ay tahay cilmigu inaad ilaaliso kaagama baahna laakiin maalku inaad ilaaliso ayuu kaaga baahan yahay oo aad waardiyeyso cilmigu waa ka aad wax ku xukumayso laakiin maalku isaga ayaa ku xukumayo marba meel kuu jihaynaya maalku waxa weeye wax bixinta aad wax ka bixisa bixintiisa la bixinayo waxa ay keentaa nuqsaan bay keentaa markuu qofku maalkiisa marba wax kala baxayo laakiin cilmiga mar kasta oo wax lagala baxo oo cilmiga waqti kasta oo wax laga bixiyo wax looga faa'iideeyo dadka cilmigu waa sii kordhaa oo waa sii siyaadaa oo qofka horumar iyo sharaf buu sii siyaadiyaa cilmigu kama nuqsaamayo qofka bixinaya ee sheegaya kama nuqsaamayo bal waaba ugu sii siyaadaya waa ugu sii siyaadaya oo waa ugu sii kordhaya cilmigu waxa weeye shaqadii nebiyada ilaahay subxaanahu ridwaanullaahi calayhim salawaatullaahi wasalaamuhu calayhim ambiyadii ilaahay waxa weeye shaqadoodii weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam shaqadii uu ka shaqayn jiray ee nebigu calayhi salaatu wasalaam shaqada u ahaydna waxay ahayd diinta ilaahay iyo dacwada ilaahay marka waxaa loo baahan yahay in diinta lagu dhaqmo oo dadku ay diinta ilaaliyaan oo tacliinteeda iyo barashadeeda ay ku dadaalaan qofkuna ilaahay kama cabsan karo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsida dhabkaa ulama iman karo ilaa uu cilmi yeesho aqoon uu yeesho intaa waxaan arkaynaa dadka oo waxa weeye weydiinaya culimmada su'aalo waxay taasi ku tusaysaa baahida loo qabo cilmiga ee dadku ay cilmiga baahida ay u qabaan marka waxaa lagama maarmaana in ardadu ay si aad iyo aad ugu dadaalaan cilmiga iyo barashadiisa iyo xasilintiisa inay ku dadaalaan kelmaddaas waxaan uga gudbayaa ardada mahadcelinta loo mahadceliyey ka sokow kelmad kalena waxa weeye waalidka ayaan dhihi doonaa alla subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun innamaa yatadakkaru ulul albaab ma siman yihiin qofkii wax bartay ee wax yaqaana iyo qofka aan waxba aqoonin ma siman yihiin maya weeye waxaa keliya oo waansama oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsida dhabtaa ula yimaada cidda wax taqaana marka waalidku waxaa lagama maarmaana awlaadda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka beeray ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku irsaaqay in waxaa loo baahan yahay wax baraan oo jahliga ka saaraan oo cilmiga diiniga ah ee aakhiro iyo adduunba dadka wax taraya inay carruurta kula dadaalaan ayaan waalidka kula talinaynaa waxa weeye carruurtani birika maalin waa idinka waaweynaanayaan gacantiinnana waa ka bixi doonaan isku daya waalid ow carruurta sidii aad cilmiga ilaahay ee diintoodu ku xasilayso sidii ay u baran lahaayeen idinka oo wax kastaba inaad ku bixisaan ay lagama maarmaan tahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiis waxa uu ku tilmaamayaa gudihiisa kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raaciyati qof kastowba mas-uul baa tahay wixii lagu raaciyeyna waa lagu weydiinayaa waalidka jooga maanta fiinland gudaheeda waxaa dhici karta in waalidna ilmihiisa meel kasta oo waxbarasho uu ka geyn karayo inuu kula dadaalayo waalidna laga yaabo ilmihiisa guriga inay u joogaan mooyaane wax kaloo wara uu hayo inayan jirin bal laga yaabo waalidka qaarkii ilmuhu inay u soo hoydaan iyo in kaleba inuusan kala ogeyn waxaan leenahay waalidiinay awlaaddan mas-uuliyad baa idinka saaran awlaadda mas-uuliyadda idinka saaran ku dadaala
su-aal baa idinka dambayn doonta qof kastow qiyaamaha su-aal baa kuu taalla wixii aad kaga jawaabi lahaydna waa lagaa sugayaa oo waxa weeye lagugu dhaafi maayo markaa awlaadda gacanta aad ku haysaan mas-uuliyaddeeda ilaaliya oo sida ay tahay u ilaaliya intaasna waxaan kaga bixi doonaa waalidka maadaama wakhtigu iska yar yahay oo uu kulul yahay meesha aynu fadhinaa ay kulushahay mucallimiinta waxaan leeyahay aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin dadaalkii ay soo galeen iyo juhdigii ay soo bixiyeen aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa macallimiinta dadaalka ay soo galeen waxaana leenahay waa inaad halkaa ka sii wadaan oo cilmiga iyo waxbarashada aad haysaan waa inaad halkaa ka sii wadaan oo ka sii siyaadisaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad qur-aana waxa uu ku leeyahay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka cilmiga leh ee cilmiga diinigaa leh ilaahay subxaanahu wa tacaala kor ayuu u qaadayaa oo kor ayuu alle u qaadayaa dadkii la siiyey cilmigana ilaahay subxaanahu wa tacaala qiyaamihii darajooyin buu siinayaa waa marka ay cilmigooda ku camal falaan ee sida uu yahay ay ugu dhaqmaan weeyaan marka waxaan leenahay culimmadana iyo macallimiinta ha ku dadaalaysay u sii siyaadin lahaayeen khayrkaas iyo wanaaggaas dacwada dadka loo sheegayana waa mas-uuliyad dadka culimmadaa dushooda saaran loona baahan yahay inay ilaaliyaan oo aan laga gaabin oo dacwada dadka la gaadhsiinayo ayan ku xidhnaanin shakhsiyaad iyo meelo gooniya iyo afraadkaas ayan ku xidhnaan ee dacwadu ay tahay mid u siman dhammaan dadka oo dhan muslin iyo gaalba waa in sidii loo gaadhsiin lahaa ay ku talagalaan dadka culimmada ah ee cilmiga yaqaana taasina taas weeyaan allah subxaanahu wa tacaalaana nebigiisa wuxuu faray inuu nebigu ilaahay weydiisto inuu cilmi u siyaadiyo oo wuxuu idhi waqul rabbi zidnii cilma waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow ilaahu cilmi ii siyaadiyo oo cilmi ii kordhi markaa qofku inuu isdhaho wax yaroo aad baratay qura ku koobnow iyada lafteedu sax maaha dad fara badan maanta waxaa laga yaabaa inay ku kadsoomeen dhowr kitaab oo ay barteen inay cilmigiiba sidaa moodeen ma aha cilmigu sidaa cilmigu waa ka waasacsan yahay 3 kitaab iyo 5 kitaab iyo 7 kitaab oo aad dhammaysatay cilmigu waa ka waasacsan yahay markaa cilmiga ha la siyaadsado culimo ahaan iyo cid walba ha la siyaadsado waxaan ku dari doonaa kelmad aan dadka guud ahaan u odhan doono kelmaddaas oo ah aayadihii ugu dambeeyey hadda ardaygii qur-aanka akhriyayey aayad ku jirtay aayadihii uu akhriyay oo alla subxaanahu wa tacaala uu leeyahay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay xadhiggiisa dadkiinna islaamka ah u qabsada hana ku kala tegina waxaad mooddaa in fara badan in qur-aanku dadka la hadlayo laakiin dadku hadalka lala hadlayo ayan muraad ba ku lahayn xadhigga ilaahay qabsadaa la yidhi xadhigga ilaahay qabsigiisa laguma ekaynoo qabsada qura lama odhanne ha kala teginaa la yidhi aad iyo aad bay aayaddaasi u tahay aayad dadka saaran yar iyo weynba in ummaddu isku duubnaato ummaddu inay waxay khayra isku kaalmaysato ummaddu inay ku dadaasho sidii ay mid u noqon lahayd arrintaasi waa arrin axaadiisyada iyo aayaduhuba ay tilmaameen ummadda wuxdadeeda iyo isumaatinkeeda iyo ummadda oo lagala cararayo inay kala jajabto oo ay furqa noqoto kelmadda ugu dambaysa waxaan u shuqul noqi doonaa markiska iyo dadka mas-uuliyiinta ee gacanta ku haya ilaahay waxaan uga baryaynaa dadkaas khayrka iyo wanaagga ay diyaariyeen iyo dadaalka ay ku jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu miisaankooda khayrkaa ugu bedelo nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiis ibnu maaja uu warinayo ayuu wuxuu ku tilmaamayaa anas ibnu maalik uu soo warinayo ayaa nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam dadka waxaa ka mida qaar furayaal u ah khayrka waxaa kaloo dadka ka mida qaar furayaal u ah sharka oo sharun ka shaqeeya dadka qaar waxaa ka mida buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam khayrka fure u ah oo khayrka ka shaqeeya iyo dadka qaar sharka fure u ah oo sharka iyo xumaatada u shaqeeya markaa xadiisku wuxuu tilmaamayaa in jannada ay u sugnaatay qofkii ku sugnaada ee ahaada khayrka furihiisa inuu janno heli doono sidaas ayuu sheegay inna min annaasi miftaaxun lilkhayr
مقاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مقاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير وويل لمن جعل الله مفاتيحا للشر على يديه حديث كاس وحو تلماما يا سيدا عن صور شيغي dadka waxaa ka mid ah qaar khayrka furawa oo sharku ka xidhan iyo sharka aan shaqo ku lahayn dadkana qaar waxaa ka mid ah sharka furayaal oo khayrku ka xidhan yahay marka waxaa janno iska lagu yiri dadka furayaasha khayrka ee sharka ka fogaada waxaana cadaab iska lagu yiri oo naari u sugnaatay dadka sharka furayaalka qof kasta oo naftaada xisaabi qof kasta oo naftaada xisaabi ma khayr baad ka shaqaysaa mise wanaag baad ka shaqaysaa ma wax dadka dhibayaad ku jirtaa mise wax dadka raali garaynayaad ku jirtaa arrintaasi waa arrin muhiima marka markaska iyo culimada ka shaqaynaysa iyo dadka islaamka ah ee ku tukanaya ku xidhan cid walba ay yihiin iyo cid kasta oo khayrka la jecel ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu miisaankooda khayrka ugu daro ayaan ilaahay uga baryaynaa dadaalka halkaa ka jirana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inoo sii kordhiyo oo inoo sii siyaadiyo inahaasaan ku soo koobi doonaa wixii aan asiibay waa ilaahay xaggiisa ka aatay wixii aan gafay naftayda iyo shaydaan bay ka ahaaday وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاه الله خير الجزاء الشيخ حسن جل الله سبحانه وتعالى. والله وقته عرفت السؤال بيدهم إن شاء الله تعالى قسم أمر كأمر معلمين ما تدرك بني كلمة أصلا كلنا إن شاء الله تعالى لكن ما أمرك وحنا هلك ويرينا إن شاء الله تعالى بدونها دعوة مهدي محمود بدونها دعوة مهدي محمود خاص نوض بينهم إن شاء الله تعالى كذب إنه محمود بدونا عروس يكتفي إن شاء الله تعالى. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. حل قرول بالوجرة ما أنتنا معها معلمتي معلمين كعلماء يهدي جرين ما أنتوا حلوه تلقلي الله يرهده أرددا إني صوب النجان سنة كدن وحي سو برهني مركا جورين وحن أمهد علنا والدينتي سنة كأردن حلي قبلها سو كليه جري ومعلمتي أي نسل لهاين وسبت أحدها سو كليه جري أرورتي أيوه إني يجود بيان المهوضة دينتا إسلامك أي هيستان أي هيد سوبتي أي معك سو كليه جرين محد بالاربان معمول هدان هاي مركز كوجدينينا والدين تدال كوري وحن سدو كله محد أعلنينا عن وجدينينا معلمينتي أيضا سو كليه جري سدو كله حلق أيضا نسنجرين أنا حلق نسشدا ومعلمتي سبتي أحد أيضا سو كليه جرين وحكسي درن أرددا oo shantii bari u kalihi jiray iskuulka maalintii sabtidii axadii kalihi lahaayeen imaan inasan lahaayna u soo kalahay dugsigii si ay diintoodii islaamka u bartaan ayagoo ku nool wadankan runtii haddaan wax yar oon aan ka sheego siduu maamulkii markaska ama u maartay u dhisan yahay markaskan asalkii loo aasaasay waa dacwo in diinta islaamka la gaarsiiyo dadka muslimiinta oo u soo guuray wadankan iyo dadka gaalada ah oo ku dhex nool hadafka ugu weyn kaas waxa markaas hadafkaas sidii lagu gaari lahaa wuxuu leeyahay markuu isku qayb ka oo badan laakiin qaybta ugu weyn oo ugu muhiimsan waa qaybta dacwada qaybta dacwada waxa hoos yimaada dugsiga waxaa dhigata arday dhan ilaa 300 arday oo qaybo kala duwan ah إلا سجال يطلون جلاس بجرو وصاغرو سبتي أحد جمعها سنين تا أربعة مركا هو شاسي لسوء ذي وحاول إلهي فندقي سكسكو مكبعدي وحا قطب دحاضوها والدين تا مركز كاسي كحرن صابتو مركز كاسالو سعطان ما جرت الدولة خرجت كيسة إيو بحسو تذكر دوينها اسم بابحيو أو سعودية كورنتديسة ليهيسة إيجار كيسة واحدا مسلمين مركا محط بالارم موجودين هنا
shaqadaas soo socotay waaxda dacwada dugsiga ka sogo waxaa jirto qayb la yidhaahdo ama guddi la yidhaahdo risaala oo ayagana u sheegta dadka gaalada dacwada gaarsiisa waxaa noo yimaada iskuulaadka jaamacadaha iyo hay-adaha kala duwan oo dhan oo waddanka sanadkii lasoo dhaafay tirakoobkaan samaynay 307 qof baan soo booqday waxaan u sheegaynay oo keliya aasaaska islaamka muxuu yahay mabaadi'da islaamka sida tiirarka islaamka iimaamka iyo dadka muslimiinta maxay yihiin baan u sheegaynay qaybta kale oo soo raacda waxaa weeye oo qaybta dacwada hoos timaada guurka saa la socotaan dadka muslimiinta waxaan ka mid nahay macnaha markasku wuxuu leeyahay shahaado dadku isku meherin karo oo sharci ah waxaan kaloo agaasinaa xafladihii arooska oo kale sidaa la socotaan sabtidii axadda iyo maalmaha kale waxaan kaloo oo qaybta dacwada hoos timaada dadka markay dhintaan meydkii aasitaankiisii iyo howlahaas oo dhan marka runtii maadaama maanta loogu talagalay ardada hadal badan inaan qaybta maamulka ay qaadato ma rabno runtii waxaa weeye dacwadaas iyo hawshaas la wado inaan isku kaalmaysano oo wixii saxsan aan isugu kaalmayno wixii khaldanna aan isku sheegno si loo saxo wayna furan tahay fikradaha way furan tahay khaladka in isku sheego way furan tahay caawimaadda macnaha wax kasta oo maaragtay ay ku hagaagayso oo dadka muslimiinta ay wax ugu dhismayaan waa soo dhawaynaynaa inta aan maamulka hayno kulley maamulkan waxaa laga yaabaa inay maalinba isbedelo oo kalba qof loo dhibo macnaha intaasaan kusoo koobayaa kulley hadda waxaan gelaynaa qaybtii ilaahay ha barakeeyo gudoomiyaha dacwada maanta waqtigan haddaan joogno ilaahay subxaana mahdi maxamuud hadda waxaan bilaabnaa carruurta bilaabaynaa hadda laga bilaabo ilaa aan ka dhamaysano shaqada carruurta socon doonta insha allahu tacala agtiina dhashay insha allahu tacala waalidiinta marka aad u farxi doona insha allahu tacaala intaanan sida noo qoran jadwalka waxaan sheegi doonaa dheerta qur-aanka waxaa xidhay 10 wiil 10 wiil baa qur-aanka dhamaystay axrag meesha waa ugu qabanay waxaan firin doonaa war ardayda nagu socotay markaasay ku ekaatay mise arday waxaa jirta soo socoto insha allahu tacaala sida soo socota 2 gruub ee isdaba yaallo gruub samarka baad arki doontaan oo xidhi doona ilaahayno oo gabdhaha u badan wiilashooda way ku jiraan iyo gruub ka dambeeya wixii 15 juz iyo wixii ka sareeya wiilasha waxaan ka codsanayaa wixii 15 juz gaaray inay istaagaan si aan u aragno ardayda noo soo socota insha allahu tacaala wiilasha idinkoo harliya idinkoo degan wixii 15 juz gaaray galaaska sheekh yunus galaaska sheekh cabdixakiim xasan macallimiinta galaasyadooda wixii 15 juz gaaray ha noo istaageen wiilasha la hadlayaa wiilasha wixii 15 gaaray ha soo istaageen wixii 15 gaaray ardayda qur-aanka xidhay kuma jirto istaagahaye si fiican soo istaaga bar soo istaaga maxaad xooga wateen wixii 15 iyo wixii ka sareeya ilaa baqara waa kahfi ilaa baqara kaala yaado saf soo gala ardayda qur-aanka xidhay kuma jirto wiilasha soo wareega wiilasha soo istaaga soo dhaqsoo dulooda soo socdaye soo socda wiilasha aye weli wiilasha qaar baa fadhiya waan dareemayaa ayaga wiilasha 15 wixii ka sareeya rabaa soo istaag cabdullaahi cabdisaaq cusub soo istaag haye maxaa fadhidaa haye weli soo socda haye maxamed kayse hore soo maraye cabdisaaq waa fadhidaa weli ha soo socday raggaas aad aragtaan waa ragga qur-aanka suuratul baqara iyo waxay iskugu jiraan ilaa kahfi inta udhaxayso ay iskugu jiraan weliba qaar baa maqan oo aan waa qaar baa maqan maxaa ilaa cabdullaahi cabdikhaaraawe haye maxaad u hadhay waad shaqaynaysaa sax weli rag baa iga maqan dareemayaa aad baad u mahadsantihiin wiilasha 100% wiilasha waa tiim ku soo xiga insha allahu tacaala waa tiim ku soo xiga qur-aanka dhammayn doono samarkii wuxuu qaybsan yihiin sanadka soo socda insha allah qaybtiisa ugu horeysa billahi kariim aad baad bas ilaahay barakeeyo maasha allah allah barakeeyo fariista haye gabdhaha raba marka sidoo kale toog kuma jiro gabdhaha xifaada ee samarka xidhi doona maya iyo soo istaagin gabdhaha galaasada laba galaasa sare maya ma rabo
كلاسيات أحد مع الحسن هذه يسوي لي شيء يتوجس قال هاي استاجين شيء يتوجس يا قال سوي استاجين سوي صراحة حاجة صامر سفي عن سكجر يا مركب وما يا ويش شخصية لا تعرف سارم لا شخصية لا تعرف سارم هاي سكجر لما ستي سكجر مركب سكجر سيدا أن فجأة كقامة ولا تم يدوي يدور يفهم قبضات بعض حسارم هكذا وحيجي قبلها حفاظ هذا واحد كمان هذا الحين هايو حمد أديب من المايا حد يموت ولا تم يدور قبضات يلا سيدور رويه فكبرك فصل إن شاء الله تعالى أدور مسجد لكم الله خيرا هذا حكم جسيم كنا نظام كها بندق إن شاء الله تعالى بندق بندق إن شاء الله تعالى مع اليوم بس مو تصلين وحنا نوصل رين دونا أفضل الدكسي وصايا بندق سمين دونا إن شاء الله تعالى وحنا فين دونا أفضل سودوين تبوتها قري أفضل سودوينته وصار فيصل ظاهر عائشة محمد موسى سلمى فيصل يوسف محمد موسى يونس محمد سعيد عبد الرحمن جبريل أهلا بكم أرضها هاي سيستاجين عائشة ورحمة الله وبركاته مقعي وحالها يوسف محمد موسى سارة وحال دكتا دكسي ومدرسة على الهدى فصل كصدحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعد وحالها يوسف محمد سعيد وحال دكتا جلاس كدوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعد وحالها جبريل حسن وحال دكتا فصل كدوات. السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعد هو عائشة محمد موسى وحال دكتا مدرسة الهدى فصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعد وصارت في سلطان المول وحال دكتا دكسي مدرسة الهدى فصل كصدحات. أهلا بكم يا أولياء أمورنا شرفتم حفلتنا يا مرحبا بضيوفنا أهلا بكم يا معهدي علمتني علما يزيد هدايتي والبيت يرعى صحتي وكلاهما لسعادتي أهلا بكم يا والدي ربيتني شكرا إليك معلمي أنت الذي ثقفتني أهلا بكم يا أولياء أمورنا شرفتم حفلتنا يا مرحبا بضيوفنا أهلا بكم يا معهدي علمتني علما يزيد هدايتي والبيت يرعى صحتي وكلاهما لسعادتي أهلا بكم يا والدي ربيتني شكرا إليك معلمي أنت الذي ثقفتني أهلا بكم أولياء أمورنا شرفتم حفلتنا يا مرحبا بضيوفنا أهلا بكم يا والدي ربيتني شكرا إليك معلمي أنت الذي ثقفتني أهلا بكم أبدأ عرضنا مسيحي إن شاء الله تعالى أنت لك في ساعتي ضفت لها فيصل ماشي صقعي عائشة محمد موسى هي صار فيصل ظاهر وباليوم يقول له حواطة. السلام عليكم سارة. ما هو الإسلام؟ الإسلام هو توحيد الله وطاعته وترك معصيته واجتناب كل ذي غير دين الإسلام. كم أركان الإسلام؟ أركان الإسلام 5.
وما هي؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. كما قال الإيمان. أركان الإيمان 6. وما هي؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ما هو الإحسان؟ هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من سيدنا محمد. ورسول الله إلى الناس كافة وآخر الأنبياء وإمام الرسل. بماذا جاء بالدين الإسلامي. لمن يتصل نسبه ويتصل نسبه بإسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. ما نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه؟ عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف بن عبد مناف بن حسين بن مناف. ما نسب من جهة أمه؟ أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. لأي جد تجتمع أمه مع والده؟ وتجتمع أمه مع والده في جده الخامس هو الثالث. المسيح قبلها ما عدك قامان لكن إن شاء الله تعالى المهاس أنت عليك جوان سؤال يفيش الكفان سيين إن شاء الله تعالى. هذا لو حكوس عديقنا عبد الرزاق هذا ورسمه وكسر جديد إن شاء الله تعالى الرسول الثلاثة كسر جديد والله يسهل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tervetuloa oppilaat, vanhemmat ja opettajat. Kiitämme Jumalaa, että pääsimme tänne tulemaan. Nyt puhutaan täällä surutuksella. Eka al-Islam, ihmisen pitää olla muslimi. Toka al-Akh, ihmisellä pitää olla aivot. Kolmannes, mies ihmisen pitää tunnistaa asioita. Niin kuin pikkulapsia voi tunnistaa asioita. Yksivuotiaat tai vauvat ei voi tunnistaa asioita. Ihmisen pitää peseytyä. Ihmisen pitää peittää itsensä. Miehellä on napasta 3 asti ja naisella on rannet ja kasvot saa näkyä. Ihmisen pitää pestä itsensä kaikenlaista liikaa pois. Ekaksi oma kroppansa, vaatensa ja missä rukoilee. Kuuluu lohti, ihmisen pitää mennä hyvää aikaa rukoilemaan. Ei voi esimerkiksi voi lähteä vaikka yhtäkkiä rukoilemaan, jos ei ole sen aikaa. Al-Niyya on se paikassa, mitä ihmiset uskovat. Niyya on sydämessä, missä ihmiset uskovat. Ja niin esimerkiksi nyt pitää olla hiljaa, mitä rukoilee tai mitä aikoo tehdä. Mitä olet tehnyt itselleni pahaa, mitä olet tehnyt itselleni pahaa, sheitanille tehnyt hyvää Jumala tässä. عبد السلام المرسمي وحكيته عبد الواحد محمد سويس تراجع أصلا على مراتب الدين الإسلامية وكانت إن شاء الله تعالى. عبد الواحد محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقاعد عبد الواحد محمد بلغة كشرة مدرسة دارية فصل كفر. وقد لنا ماذا نشكيه سنعطي التدين وصدق علينا الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من شر وحده. الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. waxaan ugu cabdixakiim axmed oo ka doona arkaan salaha sida ku xigi doono cabdixakiim axmed insha allah taala soo hormaro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Abdixakiim Axmed Diiri, waxaan dhigtaa klaaska afraadka dugsiga Al-Huda. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo tiirarka salaada mise arkaanka salaada waa Afrika waa sidan: alqiyaamu maca alqudra, qofka hadduu awoodo waa inuu istaagaa. takbiiratul ixraam, qofku waa inuu salaada dhigta, salaada hadduu xiran salaada ma ansaxayso. qiraa'atu faatixa, qofku waa inuu aqriyaa alxamdu. الركوع قف أنو ركوع. الرفع من قف أنو قصع ركوعه. اعتداد قائما قف أنو استاجيا هدو ركوعه قصع ثم كما سجود كرو.
السجود قف وينو سجودا الرفع من قف وينو كفك عربودا الطمانينة في جميع الأفعال قف وينو حسنات التيف كنت بأثارته بزمان التشهد الأخير الجلوس فيه التسليمتان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قف وينو أخيا قف وتحياتك في الكتب وينو أخيا صلى الله عليه وسلم التسليمتان قف وينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله. وحمود بيننا قيمة الدوسي ووسيء مبارك جمال أثناء التنصيب كشرح يدون إن شاء الله تعالى مبارك جمال بقولنا ما يدونه يا قيمة البرنامج الدوسي وصولنا ما يدونه إن شاء الله تعالى نهسوا يستعجل. السلام عليكم وعلى مبارك محمد مدرسة الهدى فصل القرآن وحرمنا نشهد أركان الإسلام أركان الإيمان. أركان الإسلام هو 5: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله قامت الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أركان الإيمان هو 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله وقت يركو جثة وصول كوينا وحان كسو وليدنا إن شاء الله تعالى قيمتها معك أرضا معلم عبد الحكيم أرضا الشيخ عبد الحكيم الديسة السوري استاذ مطبيقة وإنها نسو استاذ إن شاء الله تعالى أيها قراني مركب شقاء يقصن لهاينا هي أرضا الشيخ عبد الحكيم هي سوري استاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج الدراسي على وفر عبد الواحد اللي صورا وأخناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهم يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تكفرون. دراسي waxaan noo soo socda imtixaan weyn waa inaan isku diyaariyo markan su'aalaha niga weydiinaya tusaalehan kan maraati udiin 3 وهو الإسلام الإيمان الإحسان. عبد الرحمن ما هو الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وإن إلهي توحيدكي سلوه قاسمه إلهي نوركي سلام الله قال الله قال لمن اللي قفل محمد عبد الرزاق ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله إله لا يعبد وعد وجفته. عباس مختار ما حكم من أنكر وجوب الصلاة والزكاة وزعم أنهم نبي؟ أغفر بالله تعالى.
ما معنى محمد رسول الله؟ طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نبي وحنا فريقنا سمينه إن عفوك ونشهد رمينه إن كفوغان وحو نكفوغي إن وجديس إليك مصامعنا شيء من الله أن نمس حرام كريم أملون كلام كريم Jika tidak beliau kita minah hasteda ia waham. عبد الرحمن أبشر محيط هاي الآلات الروحة مفخشة وإن أردت بذلك نبوك شيء مسكوشة ودعاء أخرسية اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وإن مسكوش كونا يسنت هاي وإن مسكوش كونا ضمين وإن دبابك حرمته إلهي ذكري سنين أدلكني marka hawsha la dhamaysadina inaa waqti hilibka ku soo baxday doonaa mafahmi محمد عبد الإسلام ويسمى محابل صحابة والدلع والدلع وهل كثير كل كبيرك واحد حصل عن مشهد صحابة عن مشهد قابل عباس مطلع شيء محاكاة هذا يصحى هذا الأسكار مدفن كمان يركب ولا ماشي شيخ شروط الصلاة الإسلام العقل التمييز الوضوء ستر العورة إزالة النجاسة دخول الوقت استقبال القبلة النية أركاله من الإسلام وإن بسم الله الأول وإن قعما عيد صارته وإن وجه مسحلي بعد قعدت ملكته وقبل إحدى ونال والدك الله هو نقع أبو ري النبي عليه السلام كذبنا ذاتك وسيبك وفر ونقول الله هو سمعين آبري هويا إلى الكون أمرنا والدك إحسان سمعينه سوفت وحوين دلين ورسول بركاريان إسلام نموين نسوك labada waalid baana waxaa noo badan ilaahay ka sugan sidaas daraaddeed waa ina waalidka la dhibin oo warkooda la maqlo markay weynaadaan na inaan u hayno sidii markeerana inoo helaan ogaadan in jannada lagu galo waalidka la maqlo naarta lagu galo waalidka oo warkiisa diidan الله سبحانه وتعالى يوم يد Prophet Adam عليه السلام لأيهم سنسان ببدان سنسان الله سبحانه وتعالى تبقيت لأيهم سلام إيسان يرائهم الله سبحانه وتعالى كاسكي ميتا تنكبانا من المقايد كهوة كسوها سنة الدير ميرا نقاس فترة ميرا إسلام روس قصة لأسر كمان وصلنا البيانا حتى كيف يتسمى ربوها مسلم إيسان دي آية الأنسى تبقى إن كان كل ميرا وموقعنا يلاسك الأرض Sento que van a realizar que usa carro e está com a lareira e se tem uma passa lá e ela vai no mixer meia pita rua né essa sala lá tava na coisa nesta no ar desculpa ele vai em peça e para para isso no set شايفة أمي شغالة مالك مالها كم ده منو أصحاب كم ده نفتح يسوي
نبي محمد صلى الله عليه وسلم لما وحير بأن أشهدوا وقطع منك وبه كانوا أشهد لا إله إلا الله. نبي محمد صلى الله عليه وسلم فوت غنيك هو يلسى وكوي دي ويلك المحاولة وغير بحيث مشرابته ويلك يوفي عنها ويلك يموت الله ويلك يشاك الله ويلك يوصل الله لكن أنا من مختار نبي محمد صلى الله عليه وسلم انتو حناقي ولها قرية نوصل أرولي وأبدو بينا صلى الله وإذي بحير هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويلكي وشعلها ورائبينها وعفنها marka nabi maxamed sal alay wasalam ninkii uu laabtay ashaayo loo qabtay wuu dhahay sidiisna ninka jannada sheekadan waxaa u sheegay daraaddeed inaa waalidka jannada lagu galo waalidka warkiisa la diido naarta lagu galo يشتغل Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustamali kuwa maasina kunatia deo kazi ya muslim leo kwa kuwa maasina hele bitalao sa usku tunus la ilaha illa Allah ni Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqول hadi bitalao sa hele usku tunus mtadama mia zaito sa usku tunus la ilaha illa Allah Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina tazura Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hadi wa kusunika kwa sababu kuna bitalao sa usku tunus ääri vastasin. Minun poikani on hyvä poika, hän rukoilee, hän paastoo, hän käy sodissa, mutta hän ei kuuntele minua. Profeetta Muhammed sallallahu alaihi wasallam suuttui ja sanoi kertaa kaikki kepit ja oksat, mitä löydätte, poltetaan hänen elämään. Äiti sanoi, älä polta poikaa, niin minä annan hänelle anteeksi. Profeetta Muhammed sallallahu alaihi wasallam meni miehen luo ja lausui uskontunnustuksen. Ja mies toisti sen ja kuoli rauhassa. Minä kerroin tämän tarinan sen takia, että jos kuuntelet vanhempiasi pääset paratiisiin ja jos vastustelet eikä et pääse paratiisiin. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. maanta ciyaalka insha Allah taala waqti wada inta suuqna sabab wada insha Allah taala wada ka hormayn doona Ilaahay mas'ala ka jayno hadana Sheikh Xasan Dir ardaysa soo horay sheekhoona hadi maado Sheikh Xasan asoo istaago galaaskiisa qaybta macadka ayaa bariga sameyn doona insha Allah taala ku soo gudbina bariga macadka insha Allah taala Sheikh Xasan waxay isugu jiri doonaan arday quraanka akhrin doonta insha Allah taala iyo arday kale oo sheegi doona wixii loo dhigay arday siirad inoo sheegi doonta siirada su'aalo kamid ah weydiin doono ardayda labaad oo la weydiin doono su'aalo tajwiida arday kale oo la weydiin doono su'aalo tawxiida intaas ayay isugu jiri doonaan haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu qadaro marka waxaan ku bilaabi doonaa ardada quraanka inoo akhrin doonta ayaynu ku bilaabi doonaa kadibna waxaynu ku xajin doonaa qaybaha ardada ay leedahay انت التوقيت او صورة ardada siiraduna ku soo xigay وين دونا أرضي اللي له أنس محمود عبدي وينوقف في دونا إن شاء الله تعالى أبران في نواحي دونا وليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضل الله للناس أمثالهم
لهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. إن شاء الله تعالى وحكي دونا عبد الرحمن عبد الرزاق سوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. waxay noogu xigi doono qur-aanka inoo khasmi doona cabdulcasiis maxamed ilmi. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا كنتم أزواج ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن كان سنوات شوغا waxaynu ku xojin doonaa imikana su-aalihii ardadu casharadii ay soo dhigatay insha allahu tacaala wixii ilaahi subxaanahu watacaala uu ka waafajiyo kutubtaas oo maxadka ay ku qaateen oo tawxiidkii iyo siiradii iyo tajwiidkii intuba ay ku jiraan marka wixii ilaahi subxaanahu watacaala u safiro ayay inooga sheegi doonaan waxaa ugu horeyn doona ardayga la yidhaahdo amiin marka سؤال شوقه ليس ما هو التوحيد؟ بسم الله التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. سؤال شوقه حتى يفرق وحويه ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. سلاس أيوب سحن يا أرض ياسوم. سؤال شكرا يكون ما أول ما فرض الله على ابن آدم؟
الله الرحمن الرحيم. أول ما فرض الله على ابن آدم هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. سلاس وياه. دربي يا وتر سنة يا أخي. والله أنا شيء. إن شاء الله تعالى وحاضر قاسم كفر سند وراس وعشاء. ما هو الصراط المستقيم؟ جزاكم الله خيرا خير الجزاء. إمكان واحد من بلغان دونا أفضل كلامه شيء لهيت سيرة عشرة من كسر بيارني أما سؤالها إنه كسر بيارني أفضل قاسم يوجوهين دونا. السؤال شو هو رسالة وحويه إلى أين سافر النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ سافر إلى الشام. سؤال شو كحت سيرة وحويه متى وقعت غزوة بدر الكبرى؟ متى وقعت غزوة بدر الكبرى؟ 17 رمضان. واصلها والشيء 17 رمضان. سؤال شكوكته وحوية كم سنة استمرت المرحلة الأولى للدعوة؟ 3 سنوات. 3 سنوات. أي قادتي مركا دعوة سنة الكاس أي سيرة سنة كل ما أعطي سيرة كم أحكام النون الساكنة؟ تجويد كأيين بالعربية. أحكامها 4. أحكامه 4. ما هي؟ الإظهار، الإدغام، الإخفاء، الإدغام. وصله الشيء أحكام النون الساكنة أفرميين من الأرض يقصد إظهار، إدغام، إخفاء، يوم وإقلاب. انت سيكون ما أفرداس أي نون الساكن من أحكام بصيرة. أرض كحجة كم أحكام الميم الساكنة؟ 3. إبقام الصغير، إبقام الشفوي، إخفاء الشفوي. سداس أرض سنو الشيء وهي ميم الساكن أحكام تسوى صدق وحوية إدغام الصغير، إخفاء شفوي، هي إظهار شفوي. أرض كحجة أقسام اللام. لام كل مسوق يبسمع 10 يعني صور دقني. لام الشمسية لام القمرية. لبا أيوه يبسمع واسدة أو شيء لبا القمرية هي الشمسية. لبا ده سيوه يبسمع إن شاء الله تعالى إنتاس أي أفضل 10 يعني قاتل ينقصوا كوبنا سؤالون تواقف رمضان الله لكن وقت وينقوكم iyo waxaweeyatanka oo iska soo urursan ayaynu u soo koobnay laakiin su'aaluhu aad bay u fara badnaayeen ardadu waxay dhigatayna aad bay uga faa'iidaysteen waxaana leenahay jazaahumullahu khayran sidaas ayaynu insha allah leenahay biidni illaahi tacaala ardadaasna halkaas ayuu bandhigoodii ku soo urursan yahay casharada ay ka faa'iidaysteen biidni illah waxaa sheegi doona waqtiga faa'iidada uu leeyahay oo min 3 daqiiqo aan siin doono iyo shaqo. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد سألقي عليكم تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخواني تعلمنا 8 أشهر دروسا واستفدنا من وقتنا كما قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أو كما قال القائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين خلق كل شيء فقدره تقديرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسع كل شيء رحمة وعلما وتدبيرا
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل واعلموا أن الوقت الذي تعيشونه في هذه الحياة الدنيا أنفس ما للإنسان ولا يقدر بالأثمان، وكل مفقود يمكن أن يسترجع. لقد اهتم الإسلام بالوقت، وقد أقسم الله به في آيات كثيرة، فقال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. كما قال تعالى: والفجر وليال عشر، وغيرها من الآيات التي تبين أهمية الوقت وضرورة اغتنامه في طاعة الله. وهناك أحاديث كثيرة توضح ذلك. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وإنه لمن المؤسف حقا أن كثيرا من الناس يمثلوا بتضييع الأوقات بالمحرمات وإتباع الشهوات والعكوف على المغريات والمنهيات، بل استعد كل مسلم منا للوقوف بين يدي الله، وأعد أجوبة للأسئلة العظيمة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أفناه. بأي جواب سيجيب من أفنوا أعمارهم وقتلوا أوقاتهم وأبلوا شبابهم فيما يسقط الله من العقائد الفاسدة والبدع المنكرة والأفكار الملوثة والأخلاق السيئة والأعمال الرذيلة؟ بأي جواب سيجيب من لا يبالي بماله فيكتسبه بالوسائل المحرمة والحيل الممنوعة وينفقه في غير الطرق المشروعة؟ ما جواب هؤلاء أمام الجبار جل جلاله حين يسألهم؟ أيها المسلمون، اتقوا الله واعدوا إلى هذا الأمر عدته، واحذروا التصويف فإن الموت يأتي بغتة، ولا تغتروا بعلم الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت بغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا واغفرها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم وفقنا لشغل أوقاتنا وأعمالنا بالطاعة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، استغفروه يغفر لكم وتوبوا إليه يتوب عليكم إنه كان توابا. جزاه الله خيرا. ardaygaasina wuxuu noo soo diyaariyey wacdigaas ku saabsanaa waqtiga iyo fadligiisa. waxaana weeye waa arkaysaan dadaalka meesha ka jira insha allah. haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa cabdiraxmaan oo isla 3 daqiiqo inoogu soo dhawo biidni illaahi tacaala. wuxuuna ka hadli doonaa dhallinyaranimada iyo wanaaggeeda luqadda firishkuna inoogu sheegi doonaa wuuna soo koobi doonaa insha allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواتي وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ركب بلي تسيستوك كارنتانا تلاليوها سنقوى مكسي نور ودستا يسن هوالوستا. الله سبحانه وتعالى سنقرأ للصان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. يوري الله نتيرت هيكل سي أنت متسيالك انت اللي ما يم يهود يالكن أنت كتيرت يالي هيكل سي أيك كايسي هو متتخطو سلها مكايكي تيتبا كايكي بويبا تما الله إله تما آية إلياك يرطو ميل السن التنور وصقار هيكو دفالسا لابسولن يوانهولن
Tämä viittaa siihen, että nuoruus on tekojen aikaa, eli pitää palvoa Allahia ja omistaa ainakin osan ajastaan Allahille. Nuoruus islamissa ei tarkoita länsimaalaista käsitystä nuoresta. Islamissa ihminen on nuori, kunnes täyttää 40 vuotta. Safia bin Sirin, joka oli yksi salafus saaliheista, sanoi nuorille: "Oi nuoret, tehkää hyviä tekoja nuoruuden aikana, sillä teille ei ole muuta aikaa tehdä hyviä tekoja." Tämän tarkoituksena on, että vanhempana ihminen ei voi tehdä paljon, sillä on monia esteitä, kuten vanhuus tai terveydentila voi olla huono. Profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi miehelle neuvoissaan: "Hyödynnä 5 asiaa ennen 5 muuta asiaa. Ensimmäinen, nuoruutesi ennen kuin tulet vanhaksi. Toinen, terveytesi ennen kuin sairastut. Kolmas, rikkautesi ennen kuin tulet köyhäksi. 4, vapaa-aikasi ennen kuin olet kiireinen. Ja 5, elämäsi ennen kuolemasi." Tämän hadithin profeetta sallallahu alaihi wasallam aloitti puhumalla nuoruudesta. Hyödynnä nuoruutesi ennen kuin tulet vanhaksi. Nuoruus on aikaa, jolloin ihminen on energinen, luo perustaa tulevaisuudelleen ja suunnittelee elämänsä. Joten profeetta sallallahu alaihi wasallam käski hyödyntää tämän ajan, koska lopulta tulee aika, jolloin ei ole enää niin innokas, tarmokas ja jolloin ei ole suunnitelmiakaan. Nuoruuden intoa ja energiaa ei enää saa takaisin sen iän jälkeen. Siksi profeetta sallallahu alaihi wasallam käski tarttumaan hetkeen ja hyödyntämään sen. Henkilön tulisi käyttää tätä energiaa Allahin vuoksi hankkimalla tietoa Allahista, hankkimalla halal-elätyksen ja palvomalla Allahia teoilla, joita myöhemmin elämässä on ehkä vaikea suorittaa. Profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi: 7 ihmistä pääsee suojaan tuomiopäivänä, jolloin ei ole muuta suojaa kuin Allahin suoja. Yksi profeetan sallallahu alaihi wasallam mainitsemista 7 ihmisestä on nuori, joka kasvoi palvoen Allahia. Allah tehköön meistä tämänlaisia nuoria. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Jazakallahu khairan jazaa. Intaas waxaa inoogu dhan bandhigii insha allahu tacaala ardada fasalkaas u marnay shanaad. Waxaana halkaa idinka muuqda carruurta haddii lagu dadaalo oo lagu tabco in ay wax fara badan ka soo socdaan, ay khudbadaha idiin akhrin karayaan, dadka muxuu ay diinta gaadhsiin karayaan, lafahooda diinta u baran karayaan, horumar ay samayn karayaan. Dadaalka carruurta sidii loola tacaamula ayay ku xidhan tahay. Qofkii hore waqtigu u seegayna waqtiga ha ka faa'iidaysto, kii ka faa'iidaystayna ha u sii siyaadiyo insha allahu tacaala. aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay xuduurka aad soo xaadirteen. ilaahina waxaan idinka baryaynaa inuu ajar iyo khayr idinku bedelo. inahaas ayaan kusoo koobi doonaa. wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin. جزاه الله خير الجزاء والمشروع حسن كل يرضي سي وكسل وقت القبول يعيد جلدته وحمد صدق وجدنا قاصر كتم معك ولا قاص قاص الشيخ حسن كل قاص الشعب حكيم غير كذا صوب بيني قاص الشيخ يونس قاص حسن معلم قاص معنا عبد الله قاص وهدي بيني ووقت القبول فوت بيني ان شاء الله تعالى الحمد لله دونا والله يسلمك في سنه كم فرقع بدن بجري هذين نقطة حق القرآن كأول فرقنا يعطينا نقطة حق التربية وأسألك سنة عوضة عليه البطل اسمه عوضة بشكر أخوية أرجو أن أكون بحب أكون تقولي قلت عوضة أن أكون أتى النار هو بحب الرماد العربي أكون تكون بيسو يا حق التربية ينطلع ما كان امتحانك معلم فيا قارين وحصل حوحا عاليين أرضي إلى وحكوك التربية عاليين بالنصر بحري سأوك هنا قرويني لكن زجوتي فرضا الأرضاء بدنا نرتد marka wax fara waqtigaan gelinay oo dhowr isbaan ka shaqaynay ardadii waxaan insha Allah soo horumarinay wixii memberka galaas kasta 19 galaas baa masaajidka ka jiro. masaajidka wax ka barato waa 19 galaas. 2 galaas oo gabdhaha waaweyn oo waan reebnay waa gabdhaha xafaadda macallin Abdullah gacanta ku hayo iyo galaaska Abdullah Suulo waan ka reebnay. 17 galaas ay kaleeto ayaa waxaan soo marin doonaa insha Allah taala galaas kasta arbigiisa koowaad أدري سبعة أدري سبعة إن شاء الله تعالى. تضيع طوال جلاس ما كيسات هروب أفطر كذا سليت هم نقطة. وحال كذا الله بيضنا إن شاء الله تعالى مع كجود دوك مساجد كوردان أبدي ولا مرتوى لا تنسينا. لما ما كشوا علينا أبدي وحاسينا ألبته مرتوى ينسينا. أرضي أصلا الله بيضنا. وحال كذا الله بيضنا إن شاء الله تعالى جلاس كاستهار الماء. جلاس كاستا
تطبيق ثمانية جلاس كميلة هل إدمان ألابسك وأبدا إن شاء الله تعالى وهكذا أنت مركا تطبيق ثمانية جلاس بان جلاس كرتا أفر عذورة أو صدح وحبرشة يمد ألابها إيوه مع دكسك أو مركز كأو أرضك لما تكون غاضي أنت أقول حشاية أرضي أدو من المنطقة waxaan ardada waa iska ictibaar weeye waxaan ardayda masaddex qaatay waxaa laga yaabaa 10 arday inay la barkiciyeen waxaan la barkooga la marlay la martaxan kala siinay waa hal number arday oo gashay weeye oo si koox ku kala weynaa dhibic iyo fadsiga toosiyeen say u qurxiyeen intaas ku horreeyay aad baa inta waxbarasho fiican ilaahay maaska subhanahu wa ta'ala aad baa dadka fiican yihiin waxaa kaloo ka sheegi doonaa gabdhaha waxaa jira qaar quraanka dhibayay bahja aadan oo quraanka dhamaysay iyo gurubkeeda xafladda ummadda insha Allah ta'ala bahja aadan warsame waa gabdhaha quraanka dhibayay ee weliba dugsi hoose ka dhibayay waa barkoog gabadha dhamaysay weeye waxaa kaleeto ilaa gabdhaha toddoba meelaha danba ayaga dhammayntooda bishii lixaad aakhirka sida ay ka rajaynayno oo gabdhaha macadka sara sidoo kaleto wiilasha ilaa 3 wiil mise 4 wiil baa ku jirto oo suuratul baqara dhammaanayso qaarna gabagaba ah oo bog iyo lagu labaatan ayaa jiro ardadii 15 soo dhaaftay waa ka arkaysay wiilasha gabdhaha way ku jiraan insha Allah ta'ala waxaan bilaabi doonaa qaybtii oo markii aan bilaabi doonaa insha Allah ta'ala waxaan sheegnay waxaan ku bilaabi doonaa galaas sidoo kale soo galaasado galaas kiwada ka bilaabi doonaa ilaa kor ay kasoo gaarnay insha Allah ta'ala shaluus marka ugu horeysa waxaan u yeeri doonaa ardaygii macadka dhan iyo dugsiga hoose lagu daray iyo markaska oo dhan waxaan u kala weyn ka ahayn inta yarka ardayga akhlaaq u qadu yeeri doona insha Allah ta'ala waa ninka la yiraahdo Cabbaas Cabdiraxmaan Yuusuf si ijmaaca macallimiinta markaan fadhiisnay maamulka ardaygaasi waxay siiyeen sanadkan shaqadii socotay waxbarashada ha noqoto xagga xuquuqda ha noqoto xagga adaabta ha noqoto istaagga ha noqoto quraanka diyaarintiisii tarbiyadii dhan kasta ardaygaas waxaan siinay ardayga koowaad waxaan siinaa lacag 50 euro insha Allah ta'ala ilaa markii ma sha Allah Allah barkayo Cabdiraxmaan Cabbaas Cabdiraxmaan Yuusuf Cabbaas Cabdiraxmaan Yuusuf aad baad u mahadsan tahay aad baad ninka uu sharfay markaska aad runtii ilaah u wajay subxaana wa taala waqtiga soo gaarsiiyo quraanka waa ardada dhammayntood waqtiga soo socda insha Allah ta'ala ardada dhammayntood waqtiga soo socda insha Allah ta'ala ardada Sheekh Jibriil oo saddex galaas macallinka Sheekh Jibriil oo saddex galaas macallin ardada sabta dhigato markii imtixaanka sheekh uu qaaday ardayga lambarkow galay waa Yunus Maxamed Saciid Yunus Maxamed Saciid Yunus Maxamed Saciid Yunus Allah barakayo Allah يسلمك ما شاء الله يونس ما شاء الله يونس لما حاجة لما حاجة أرضي يا عبد المجيد عبد الله وقال الجواب لما عبد المجيد عبد الله عبدي عبد المجيد مركز المحلالة ما شاء الله الله بركاته أرضي صدحات قال كاس كاس وعبد الرحمن جبريل عبد الرحمن جبريل عبد الرحمن شيخ جبريل وأرضي صدحات قال كاس كا صوتنا قال كوباك صمت عبد الرحمن جبريل sidoo kaleeto galaaska asabtida waxaa aadaabta qaaday ardayga edabta qaaday galaaska Sheekh Jibriil ee markowga waxaa aadaab qaaday ardayga yahdo gabadha Zamzam Muuse Aadan Zamzam Muuse Aadan Zamzam Muuse Aadan soo istaagto Zamzam Muuse Aadan وينها يلا وكوات كوات أنا عارفة أجيبهم أجيبهم Zamzam ما صدقي مركز المحل يا شيخ هذا ما شاء الله ما شاء الله هذه
ولو عندنا الشيخ جبريل قراصة الكوبات أحد قراصة الكوبات أحد والشيخ جبريل دريسة الشيخ عبدالله الدكتور حاقاوي مريم الجمال هسوي استكتور يلا مع السنة نبركو صدح نصير لا بكل علي صالحة حسن ربقوة صدح رحمة هاشم عوض هسوي استاقين مريم الجمال صالح حسن يا مريم رحمة هاشم سوي استاقين هذا جوتان ودي دراسة الدولة حتى صعبنا دراسة الدولة حتى وين صعبنا صالح حسن صوصعة رحمة هاشم صوصعة أيه كمان مريم ما جوتان مريم الجمال أول مريم جمال واتوا ما شوف رحمة هاشم مريم الجمال صالح حسن أول صالح اليوم أيوه ومازلتي الجراس حتى آلاته وحاقاري آلاته أرضي قاري زكريا حسن مين بقى قاضي كبتها حق بطولة قاضي أخوشنا لكن زكريا مين بقى يجيبوا الشخص قاضي وزكريا حسن جراس كان بعضهم بيقولنا ليه الشيخ ولي عيان جبريل أرضي المتوقع على عائشة إدريس حسن عايشين إنجنيرك عائشة إدريس حسن أرضي كولاد قاضي صوت لحظة يا جري بعضهم جري الشيخ جبريل زكريا حسن زكريا مسيح عائشة إدريس حسن سويستاك عائشة إدريس حسن أول عائشة سويستاك ما حد شوفها عائشة شعبتين وهكذا عائشة ويباس الدكتور يا ناطي الله يبارك له خلاص كذا أرضي يا بنات محمد شيخو محمد شيخو أرضي يا صديق الله برصدح عبد الله محمد جيته عبد الله محمد جيته لما صدق ويجوا يوم الجنة إن شاء الله تعالى. كسعة. وهاي موسى جاوبوا فيها. هاي أرضي آلات قراص الشيخ الأسبحات عبد الله محمد محمود. عبد الله محمد جيت ولو هاي عبد الله محمد محمود آلات قراص. جيته ولا مصدح جيته نكا ولكن وين عبد الله ومغير معاك هذا عبد الله محمد محمود ما تنجز ما شاء الله انتهى شاشه الله يبارك مع جراس كاميرات صار يا شيخ انت شباب احمد جراس كاميرات الصوت بقى أرضي لما كون قاضي ونجيب وجراس عبد الرزاق عبد الياح إلى عبد النور معلمك نجيب عبد الفتاح عبد الكمال مركبة
مجيد عبد الفتاح مجيد أضافه أرضي مرات سلمان محمد موسى أرضي صدحان سندس موسى آدم لوضع قبضة سلمان محمد موسى سلمان محمد موسى أول لما صدح سندس موسى آدم طيب سلمان محمد موسى أول سلمان سيساك الله يبارك أرضي جلسك أدابته قاضي وعبد الله عبد الغني عبد الله عبد الغني عبد الله عبد الغني أرضي أدابته أسنانك ودوم من شيء الله كان في الأرض اللهم الله عنه أحد ومعلمينها يقع أحد عايشة جامع آدم أيام نبتوه قاضي حتى اللواطكا عايشة وضل عفر وضل بناء اللواط مشيلة وقصد بس عليه اللواط حليم الصغير صدحان مبارك جمال نبتوه وعايشة جامع آدم حليم وقت حليم الصغير نبلبة صلى الله عليه نمبر 6 مبارك جمال مبارك جمال وقناص كالضوارة قناص كالضوارة مبارك جمال عايشة جامعة آدم مبارك جمال ومغيها مبارك جمال وقناص كالضوارة مبارك جمال وأفراد معها قناص كالضوارة وحوق علي عبد الرحمن جمال قناص كالضوارة وحوق علي عبد الرحمن جمال عبد الرحمن جمال والله عبد الرحمن جامع والله عبد الرحمن جمال مبارك شمال نور مبارك نور مبارك جامع مبارك جامع والمبارك جامع يا ولد شفت مبارك جامع صح مبارك جامع ولد مبارك جامع سيني كان مبارك جامع نارك صدحات واسق مبارك جامع ما ينكر جمال ما نكر صحوة ومبارك جامع مبارك جامع والمسيح هوية أداتنا عبد الرحمن جمال عبد الرحمن جمال هوية قصع عمر قصع قراص كصدحات قراص كصدحات أو صوفيا قراص كصدحات محمد آلن مع البحارة قراص كيسان أو صوفيا وعلى بكوغا يوسف محمد موسى سلام يوسف محمد موسى سلام لبو سارة فيصل طاهر صدق عائشة محمد موسى جلس كمية جلس كمية جلس كمية جلس كمية كبح الجلس يلا يلا جلس وحاق علي أميرة أحمد عيسى أميرة أحمد عيسى أميرة أحمد عيسى الله يهنا أميرة أو أميرة أميرة أحمد عيسى أول أول أي أميرة أميرة أحمد عيسى طبلات سبعة كذاك سبعة أميرة أحمد والله خير بالله قدام مريم
جلسة واحدة تكبر سمان اتصالات واحدة الأرض نمر كمان قاضي وريان إبراهيم حاشي ريان إبراهيم حاشي ريان إبراهيم حاشي ما ظهر هو بشير أحمد فتاح محمد طيب علينا والله مرة إلى مصدح فالله بشير أحمد الله تيقع فتاح محمد إلى مصدح وانت هو كسي جلس كلمة وضبط آلات نعيمة عبد عمر آلات رأس الصلاحات نعيمة عبد عمر نعيمة عبد عمر رأس الصلاحات ما شاء الله لا بركة رأس الصلاحات يا بنت نعيمة عبد عمر جلس كأفرادك وحمد من يتولاتي يلاتي يصدحاتي وجواز تعيشي هاي الوطن الأول مسيحيين جلس كصدحات أفرادك ومعنا عبد الله جلاسي سوى الله جلاسة قيمة الصبت اللي نبرتوه حق علي إبراهيم محمد سعيد نبرتوه حق علي إبراهيم محمد سعيد لما الله حق علي عبد الرحمن محمود عبدي عبد الرحمن محمود عبدي لما صدق حق علي مصطفى محمد عيسى مصطفى محمد عيسى مصطفى محمد عيسى مصطفى محمد عيسى مريم عبد المعلم مريم عبد المعلم مريم عبد المعلم دراسة مع عبد الله أفراد قيمتها هبأة لمركوه حاضري عائشة محمد بن عائشة محمد بن عائشة محمد بن شكرا عائشة محمد لما الله حق عليه حتى حكيم أحمد درية حتى حكيم أحمد درية حتى حكيم أحمد درية ومرتبط مبارك جمال مبارك جمال لما وصلت مبارك جمال
حكينا حكينا ما أعرف الآلات الصغيرة وحاجة قوية بشرى سنة خرب بشرى سنة خرب وليك بسرعة وسيلة كنت لنا ونصل إلى التصريح الخاصة فعلي بالضبط شفاء الدكتور عبد الرشيد شفاء الدكتور عبد الرشيد لما ارتدى فاروق اسماعيل موسى الكلام فاروق اسماعيل موسى الشفاء الدكتور عبد الرشيد أنا أبدأ وحق عائشة عبد الرزاق عصبلي عائشة عبد الرزاق عصبلي ألف فصل كخديجة حبة فصل كخديجة حبة لبركوا حكم مريم علي محمود مريم علي محمود حبة لبركوا مريم علي محمود قبلها حتى معلم الوقوع أو حيمرك بكر سايوي أو وريري بقطع معي معلمتك على صدق ستة الجنة مرة تلوين حوالي 6 طابق قام ونمبر قريحة والله ما يعرف ولا شيء ولا ليس مكان ولا أفضل مكان بالشارع ترى رئيس ما يعرف ولا شيء هي قبلها العيال سكوا صديق رسالة وين أبناء عبد التحريم ولا بطل أبناء عبد التحريم ولا بطل ومريم مهدي محمود مريم مهدي محمود ومصدر وحشيد مع جماعة وحمدنا هنا وعارفة يلقى الله يا جماعة زي الصوت وصوتين وحكمنا جمال نصار حاشي نجمة جمال جمال من هذول حليم نجيب جمال من هذول نمر فرسان جمال من هذول سمية جامع إيو جمال من هذول أيام مختار إنت أصبر إنت أصبر لكن تبقى معلقة ونضع بحاوسي إنت أصبر أنا مهم كذا وريني إنت أسان ورسالة الله أبارك إنت أصبر لكن الله أصبر وحسبك وسلام عليه أنا كان عليه ساس مدرسة أردت وحق علي جويرية أبشر جويرية ألام كاس وقلت لهم معنا هذا إيسيا وقلتها نالي كان يشري يكون جيش كل من أنت صار في بس على شيء لكن أنت كاس جويرية ألام مدرسة أيه سؤال دراسة الشعب الحكيم معك دراسة قوية يا الشعب الحكيم عبد الرحمن أبشر ولا مرتوب عبد الرحمن أبشر ولا مرتوب استمر كان آلاتنا معنا أساسية هو يسكون معنا آلاتي كنا مرة معنا أساسية مرتين شعب الحكيم بروسي آلاته إيو بسم الله wiilkaas isaga ah anu markaan
كور جزء شغال بمرة حتى لو في جزء يرجع شرط كل جزء يستاهل أنا واحد قبل كل جزء كله أيوة شامل الدنيا كسمية ما شاء الله الله بركاته ممكن لا يصير جزء كسمية شيء تركب له جزء أرضه وانا أنا وحنا قلنا ماشي عند نصب حيوه أرض ما أرض أسبوع جزء ما ينصب حي مش نصب حي لكن هو يدي مع أدي أرض الولاد أسامة شهادة شعبي أسامة شهادة شعبي وربنا وقرأت المعلمين ومرزقته عبد الرحمن فيصل طاهر عبد الرحمن فيصل طاهر ومرزقته sidoo kale galaaska cabdixakiima gabdhaha dowladda galbeedka haweeney ibraahim yuusuf oo number 2 haweeney ibraahim yuusuf oo number 2 marmada sumaya sheekhan shacabdi soo istaaga gabdhaha soo istaaga haweeneyda soo istaagto asmaa cabdikariim asmaa injineer cabdikariim lambar saddex asmaa cabdikariim lambar saddex akhlaaqda waxaa qaaday caysha cabdiqaaliq caysha cabdiqaaliq baa akhlaaqda number 2 qaaday galaaska gabdhaha qaaday soo istaaga guryahaas oo dhan عايشة بتعالوا يا لابا الله يبارك أسمع كثيرون سمعي علينا درسنا شيخ يونس مدرسة أنس محمود عبدالله النبيتون ودي يا اخي شيخ ديري شيخ حسن ديري عبد الرحمن عبد الرزاق سلوله يا عبد الله عبد الخالق ديري عبد الله وين وصل بالدين شيخ عبد الرحمن الشربيني وين ولا وين عبد الله عبد الرحمن عبد الرزاق سلوله عبد الله عبد الخالق عبد الله عبد الخالق ولا بصدقها محمد فيصل طاهر ألافة محمد فيصل باسوشة محمد فيصل طاهر ألافة محمد فيصل طاهر ألافة محمد فيصل طاهر عبد الرزاق عبد الله صنطري ومرتضى مصطفى محمد مصطفى عبد الحكيم بعد كده صوره واحد عبد الحكيم شيخ فعلي انت قاعد ربنا يحفظك ان شاء الله تعالى سيدي كل موضوع واحد كل قصه هتيجي دوما الله يوم تواصل يتابع عنده وتعالى ورجل يحفظه ان شاء الله تعالى وحفظه غير ما يرى القران حفظه غير القران حفظه بالاساس الموضوع هو ما تبراه ان شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا اكرم ما سيدنا الله يجزيه ان شاء الله تعالى يوسف ونحن نصر ان شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما ذاقوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين
وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون. رحمن ساعدني يا رحمن اشرح رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن
حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح